maanta waxaynu haynaa fursad ganacsi midii ugu weyneed oo qof ganacsada ah uu ku fakaro inuu ka sameeyo magaalada Muqdisho. Halkan aad u jeedaan waa xeebta Geelaq oo ku taala degmada Xamarweyne, kawaanka malayga ee degmada Xamarweyne. Goobtan waa goob istiraatiiji ah, galab kasta waxay yimaada ilaa 300 ilaa 400 oo dhalinyaro ah. Laakiin nasiib darro goobtan waa sidaan. Bal fiiri dadka meesha ay ku dalxiisayaan. Qashinkan ayuu ku dalxiisayaan, dhagaxaantaas uu mudaya ayay ku tiraanturoonayaan. Halkan qof waayeel ma imaan karo, qof oo waayeelana ma imaan karo, qof naafaana ma imaan karo. Sababtoo ah dhagaxaanta waa kuwa halis ah oo qofka durbadii kala goynaya. Sida u jeedaan bafiiri waa dhagaxaan soo taagtaagan. Sidaa daraadeed fursadda ganacsi halkan ka banaan waxa loo baahan yahay ganacsado Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed ay goobtan u xirto. Sidoo kale dhagaxaantaasi ma qashinkan ka qaada goobtan u bedelo goob dalxiis ah oo raqiis ah oo runtii 400 oo dhalinyaro ah midkiiba $0.5 laga qaaday wixii ka sii yar. Dadka lacagta haystana kuraas halkaas loo dhigo oo kuraasta ay maaragtay isaga raaxaystaan oo jawi fiican ay ku qaataan. Xeebtan 100% waxay ka fiican tahay xeebta liida ee hotel beenaadyada laga hirgeliyay ee hotelada laga buuxiyay kuraastii loo diiday ee ummadda lagu dhibaayo oo leeyahay qof fadhiisa kara male. Dadku waa in taagnaadaan kaliya markii ganacsatada ay waayeen hotelada wax ka gata. Dhalinyarada liido way ka soo tageen halkan ay soo caamireen. Halkaana waxa laga rabaa ganacsada Soomaaliyeed fursad inay ka faa'iideystaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa laga rabaa in fursadaha ganacsi ee dalka banaad ka faa'iideysto. Xeebtan aan nadiifino, sidoo kale markaan nadiifino aan u bedelno goob ganacsi oo dalxiis oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku dalxiisi karaan oo si sharaf leh u raaxaysan karaan. Maalmooda fasaxa, maalmaha iskuulku xiran yahay, maalmaha jaamacaddu xiran tahay ay jawi fiican ku qaadan karaan. Sida u jeedaan goobtan waa mid ka mid ah goobaha dalxiiska ugu quruxda badan, laakiin waa tan fiiri qashinka fiiri. Saamba qashinku u yaala yaana ku eedeen gobolka Banaadir yaana ku eedeen dawladda federaalka Soomaaliya. Cidna yaa lagu eedeen sababtoo ah qashinkan degmada Xamarweyne ayaa laga soo tuuraa marka qofna laguma eedeyn karo. Kaliya waxa la sameyn karaa in goobtan loo kaco la nadiifiyo goob ganacsi loo bedelo. Dawladda Soomaaliyeed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka codsanayna goobtan goob dalxiis u bedelo oo dawladda Soomaaliyeed ay leedahay ama maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Xasan Maxamed Xuseen Mugaab gudoomiye goobtan u bedel goob dalxiis oo qurux badan oo dawladdu gacanta ku hayso oo lacag la'aan ah oo dhalinyarada gobolka Banaadir maalmaha fasaxa ay yihiin ay u soo dalxiis tagaan oo jawi ku qaataan oo runtii aad u fiican. Sidoo kale goobtan magaalada Muqdisho caasimadda waxay ku tahay ceeb. Haddii qof dalxiisa uu yimaado oo waxaan u arko wuxuu oran karaa xeebta ugu wasaqda badan waxa ku taala Afrika Soomaaliya sababtoo waa runtii beentis ma fiiriisa ogtaa waa xeebta ugu wasaqda badan Soomaaliya. Sidoo kale xeebta ugu quruxda badan Soomaaliya hadii la dhisi lahaa bal fiiri doomaha waxa laga yaabaa 10 sano in halkaas yaalaan biyahaas fiir badda ka dhex buuxa 10 sano ka badan bay halkan yaalaan. Waa la qaadi karaa maamulka degmada Xamarweyne waxa leenahay doomahan qaado goobta nadiifiya dhalinyarada u nadiifiya canshuur bixiyaal waa dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddii dawladdu aysan awoodin waa in goobtan ganacsatada da'da yarta ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed lagu wareejiyaa yiraahdaa qof kasta intaas oo mitir buu leeyahay intaas mitir ha nadiifto dhagaxaan qofku istaagi kara male dhagaxaanta qofku waa mudaya laguma istaagi karo la yiraahdo sima ka shaqeeya ka bacdina goob ganacsi u bedela oo aad hadii ka sameysaan. Xeebtan waa xeeb aad u weyn waxa gali karta ilaa iyo 70 ganacsi ku dhawaad oo yar baa gali karta oo runtii si raaxo leh lagu raaxaysan karo. Inkastoo aan ognahay in dekada u dhowdahay oo arrimaha amni dartiis dekada darteed aan halkan looga shaqeyn karin haddana dawladda Soomaaliyeed waxaan kaga mahadcelinaynaa dalka inay safe ka dhigtay oo magaalada Muqdisho ay tahay magaalooyinka ugu amniga badan qaaradda Afrika maanta. Muqdisho waa magaalooyinka ugu amniga badan qaaradda Afrika goobtan lama ogolaan jirin maanta waxa laga yaabaa dhalinyaro laftiga dekada inay ku soo dalxiisayaan oo dawladdu aysan la hadleen oo faraha ka qaadiso sababtoo ah magaalada ay amni noqotay. Dhagaxaanta sidaan ah qofna kuma istaagi karo aniga waa ku istaagi waayo qofka markuu istaago way mudayaan qof naafa ma imaan karo qof oo waayeelna ma imaan karo marka la dhagaxaanta in la simo la qoro la simo darbi yar oo aan waxba ahayn lagu xiro sidoo kalena kuraas raaxa la keeno nadaafadeedana la ilaaliyo qof kasta $1 oo nadaafada goobtan lagu ilaalinayo wuu ogol yahay ganacsadaha halkan nadiifiya goob dalxiis oo qurux badan u bedelana lacagtu waa loo ogol yahay sababtoo ah shaqo ayuu hayaa. Laakiin waxaan rabnaa intii aad koobiga ka daba wareegi lahaydeen qofaa kafay furtay 200 oo qofaa kafay ka daba furatay hal jid kaliya war waxa iska daaya fursadaha ganacsi ee banaan eega fursadan ganacsi mid ka weyn ma jirto meeshan 500 oo qof aad timaado maalintii kursiga dilya waa $1 saacad liido aad aragteen jaamka buuqa meel la fadhiista aan lahayn ciriiriga kursiga $1 lagu fadhiistaa
bal halkan ka waran oo jawigeeda nadaafadeeda laga shaqeeyo oo laga soo saaro runtii mid qurux badan ma aha wax loo dhigi karo. Dhalinyaro halkan sawiro ay ku galaan sababtoo ah dhalinyarada dalkooda ma rabaan inay ka taariibaan, sababtaas uga taariibeyna waa inay xeebahooda quruxda badan ay ku raaxaystaan. sidoo kale dowladda Soomaaliyeed goob dalxiis dowladda waa inay yeelataa. Dowladda Soomaaliyeed wax ka codsanayna goobtan goob dowladdu leedahay oo dalxiis oo free ah oo nadaafadeeda dowladda ka shaqeyso oo maamulka gobolka Banaadir ka shaqeeyo in laga dhigo si dhalinyaradu ay waqti ugu qaataan, bulshada caasimadda ay waqti ugu qaataan, dadka dalxiisayaasha ay noo imaanayana ay waqti ugu qaataan. sababtoo meesha waa caasimad, Muqdisho waa amni, waa magaalooyinka ugu amniga badan bay ka mid noqotay, sidaa daraadeed dalxiisayaal badan baa noo imaanaya. Gudoomiyaha Xasan Maxamed Xuseen Mugaab, gudoomiye waa ku ogahay magaalada caasimadda shaqo fiican baa ka wadaa. waxaa ka codsanaynaa goobtan inaad nadaafadeeda ku dartid oo nadiifisid oo dhagaxaantaas sintid oo goob dalxiis aad u bedeshid oo aad u qurux badan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. fadlan fursadan ganacsiga laga faa'iidaysto.